nabigu u sheegay sallallahu alayhi wasallam xadiista marka hadii la soo khulaaseeyo yaani darajaadka iyo fadliga iyo qiimaha laga helayo salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii la soo khulaaseeyo koo waxa laga heli imtithaalu amri Ilaahi ta'ala amarka Ilaahi oo qofka uu qaato yaa ayyuhalladina aamanu sallu alayhi wa sallimu tasliima amarka Ilaahi qaadashadiisa liibaanku ugu filan faydada labaad oo laga helayo khulaasada xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam موافقة الله تعالى في الصلاة على النبي إله تكون وافقيسا إلا إله النبي سكسليه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي وكإله رجل شأنه وحد كلو فإذا كلو كهليس وحوي حصول 10 رحمات من الله تعالى إن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هالمر كسلسه تبن حريص إن الحق إلهي أتكهليسه ويمحى عنك 10 ذنوب toban dembina in laga baabi'inayo oo laga tirtirayo wayurfacu laka 10 darajaat toban darajana in ilaahay ku dalacsiinayo waa hal mar oo nabiga aad ku sallisay sallallahu alayhi wasallam faa'idada kale oo ka helayso waxa weey anna salaati ala nabi sallallahu alayhi wasallam sababun li ijabati du'a salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam oo la badiyo wuxuu sabab u yahay ducadaada mustajaaba noqota faa'idada kale oo laga helayo waxa weey waa sababun لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بدينتي فائدة لجه ليه نبيك كوجو شفاعية ما أنت قيامها فائدة كلو لجه ليه وسبب لغفران الذنوب ذنوب تدا إلهي وكتر ترى والدم بقى إلهي وكل عفا وحديثك أبي بن كعب وهذا النسوشي جينيو فائدة كلو لجه ليه صلى النبي صلى الله عليه وسلم وسبب لكشف الهموم والكروب وحيالها والكائيو والبهار كي إسلا هذا الكائيو waxyaalaha soo dhan laga faydi nabiga sallallahu alayhi wasallam sida xadiiska Ubay ibn Ka'b hadaba nabigu noogu sheegayay sallallahu sallam baraka alayhi faa'idada kale laga helayo waa sababun liqurbi al-'abd min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawm al-qiyamati faa'idada kale laga helayo waxa weey adoonku inuu u dhawaanayo nabigeena sallallahu alayhi wasallam maalinta qiyaamaha inuu u dhawaanayo faa'idada kale laga helayo waxa weey taquumu maqaama as-sadaqati ladal faqiri qofka faqirka ah oo wuxuu sadaqaysto waayay booskii sadaqada waxa uu istaagay ajirkeedii salliga nabigu badiyo sallallahu alayhi wasallam oo waxaad sadaqaysato hadaad weyso salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam hadaad badiso booskii sadaqada iyo ajirkii sadaqada ayaa ilaahay ku siin subhanahu wa ta'ala faa'idada kale laga helayo waxa weey sababun liqada'i al-hawaa'ij danahaaga ilaahay ku gudi oo markii xaaja meel ay kaaga xiran tahay salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam hadaad badin jirtay hawaa'ijda ilaahay waa ku fududeeyaa subhanahu wa ta'ala faa'idada kale laga helayo waxa weey waa sababun لرد النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك وسلامه عليك وحي سبب ugu noqon salinta iyo salaamta nabiga aad salaamayso nabigu inuu ka radiyo oo isagu uu ka qaado oo xadiis lafdigiisu sida noocaas oo kale ku yimido qof isoo salaamaya ma jiro illa radda Allahu li ruuhi hatta arudda alayhi salam qof salaamay ugu sallay ma jiro illa ruuxda ilaahi ugu soo celino markaasan ka qaada oo salaamta iyo salligiisa ayaan ka radiyaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay kale sabab u tahay oo faa'iidada kale laga helayo salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waa sababun lidib almajlis wa annahu la yakunu hasratan wa nadamatan yawm alqiyamati majliskay udug iyo caraf ay u tahay majliska nabiga lagu la salliyo sallallahu alayhi wasallam shalayto iyo nadaamo majlis aad ka qoomamayso ma noqonayo laakiin xadiiska waxa ku soo arooray majlis aan ilaahi lagu xusin nabigiisana aan lagu sallin sallallahu alayhi wasallam waa laga shalaaya maalinta qiyaamaha waad ka qoomamayn laakiin majliska nabiga sallallahu alayhi wasallam salligiisa aad markaa ku sheegayso ma noqonayo majaalista markaa lagu kurboonayo oo laga shalaayayo ma noqonayo faa'idada kale salligu iska leeyahay waxa kamida tanfi 'an al-'abdi isma al-bukhli ida salla 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam magaca bakhiiltinimada ayaa salligu ka anfin oo ku diidi hadaad nabiga ku salliso sallallahu alayhi wasallam laakiin hadii nabiga aadan ku sallin markii nabigi magaciisa aad maqashid sidii xadiiska hore aan u soo qaadanaynay magaca bakhiila kugu dhacaya oo nabiga kugu tilmaamay sallallahu sallam baraka alayhi bakhiil kugu tilmaamay faa'idada kale oo salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam looga helayo waxa weey yakhruju biha al-'abdu 'an al-jafaa'i li rasuulillah sallallahu alayhi wasallam salliga qofku uu badinayo wuxuu uga go'ayaa oo uga baxayaa gooynta nabi maxamed uu gooyay sallallahu alayhi wasallam ayaad ka bixi musiibadaas hadaadan laakiin salligii aadan akhrinaynin oodan badinaynin maxaa kugu jira nawcu jafaa'in li rasuulillah nooc kamida goyn oo xiriirkii nabigaba aad jartayba oo nabigaba sallallahu alayhi wasallam xiriirkaagu uusan ku weynayn noocaasa marka kugu jiraya oo jafaha kamida
waxaa kaloo ka mida faa'iidada salliga nabiga salى الlahu عalيه wasalam uu iska leeyahay waa sababun licardi ismika calى الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam salliga aad badinayso wuxuu sababku ugu yahay magacaagoo mar walbaba nabiga loo bandhigayo ummadda qofkii ku sallisa oo ummaddiisa nabiga salى الlahu عalيه wasalam asmaadooda loo kor yeeli oo nabiga loo bandhigayo magacaagoo mar walbaba nabiga salى الlahu عalيه wasalam lagu gudbinayo waa fadiilo iyo masiyo iyo makaano iyo sharaf weyn faa'iidada kaleo salliga nabiga salى الlahu عalيه wasalam uu iska leeyahay waxaa weeye waa adaaءun liaqali اlqaliili min xuquuqi اlmustaفى salى الlahu عalيه wasalam xuquuqda ugu yar midka ugu sii yar ayaad gudane salliga nabiga haddaad badiso salى الlahu عalيه wasalam xuquuqdii waaweynaa ma gudan kartid wixii lagu lahaana ma gaari kartid laakiin xaqa qaybta ugu yar ayaad gudane xuquuqda nabiga uu kugu leeyahay salى الlahu عalيه wasalam haddii salliga nabiga salى الlahu عalيه wasalam aad badiso faa'iidada kale oo salliga nabiga salى الlahu عalيه wasalam uu iska leeyahay waxaa weeye waa sababun likahrati takraari ismi اllaahi wa ismi nabiyihi moxamed salى الlahu عalيه wasalam calىa lisaanika carabkaaga waxaa ku badinaya magaca ilaahay ilaa nabiga magaca nabiga inta aadan sheegin maxaa ka horeeya allaahumma allaahumma magacaaga marka magaca ilaahay subxaanahu watacaala ayaa carabkaaga ku badanaya o kusoo laalaabanaya iyo magaca nebi moxamed salى اllahu wslam mubaaraka calayhi intaasaana masiyo iyo karaamo iyo fadiilaba kuugu sugan intaasoo faa'iida wey haddii lasoo khulaaseeyo axaadiista faraha badan oo ku kala tagsan musnadka imaamu axmed iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo abu daawuud iyo kayrkoodaba ku kala tagsan haddii lasoo khulaaseeyo waa intaas fawaa'idda laga helayo salliga nabigeena salى اllahu wslam mubaaraka calayh